بسم الله الرحمن الرحيم walal ku soo dhawow kanaalka socdaal bulsho barnaamijkani haddii uu ku cajabiyey like share iyo subscribe-ka waa xaggiina fikirkaagana waa inoo muhiim ee inoogu reeb commentiga si aad inoo dhiirigelisid marka hore hooyo waa hooyo 9 bilood isugeed hadday ku soo haysay hadday naas ku soo siisay hadday 5 sano in ka badan ay ku soo korisay hooyada marnaba ama awaalkeeda cid gudi kartaa ma jirto hooyadu waa hooyo marnaba eed malaha balse halkan waxa noo yaalo oo kaliya waa qisaduna waxay tahay in la sheego oo kaliya hooyaduna ma ahayn ruux qaldan ama uwadkeedii daadisay ama dayaceysay maysan ahayn waxa dhacday farsamo xumo waxa dhacday oo kaliya farsamo xumo hooyaduna ma aynan nacbanayn waa ilmaheeda gabadhuna up to now ma nacba waalidkeeda balse waxa ay ka sheekeynaysay oo kaliya ayaa ahaa qisaduna ka sheekeen sida ay u dhacday ayay ahayd mooye hooya eed u qabaana may oran hooyadeedna wax aflagaada ama xumaana ama farku godis ah marnaba ma aysan tilmaamin gabadhan qisada xanuunka leh ayay si tartiib ah qodob ah nidaam ah ayay u soo bandhigtay ruux walba wuxuu u qaatay dhinaca uu rabo ayuu u jiitay dadka qaar ayaa gaarayba xitaa in ay aflagaadeeyaan hooyadii fadlan hooyadaas waa hooyadeenoo kale fadlan ka daaya aflagaadada waatan labaade ka daaya aabbaha eedeentiisa waayo labada waalidba wax dembi ah ay ku lahaayeen arrinkaa ma jirin waxaa dhacday oo keliya farsamo xumo really haddaad dareemo leedihiin halkaa waxaa ka dhacay farsamo xumo oo keliya gabadhuna ma laha eed hooyaduna ma laha eed aabbuhuna ma laha eed balse in ay waxaan dhacaan ayaa qornayd wayna dhaceen waxayna ku dhaceen farsamo xumo dad baan arkay aflagaadeynaya hooyadii qiimaha iyo qaayaha badneed dad baan arkay aflagaadeynaya gabadha miskiinta ee aad moodi xitaa qaabka ay u sharxeyso qisadeeda xanuunka badneed aad dareemaysid in ay qalbiga ka oynayso waxaan dareemayay ama qof waliba oo damiir leh uu dareemayay in ay gabadhu qalbiga ka oynayso indhaheeda wax ilin ah ma lahayn balse qof walba waxay dareemaysay in ay qalbiga ka oynayso gabadha miskiinta ee xaaladii ay soo martay meeshaad ka kululaa lahayd ka guban lahayd war way kugu dhacday wayna kuu qornayd meesha ka dhihi lahayd haddii aad ayadii aflagaadeyso amaba hooyadii aad u gudubto qiimaha iyo qaayaha lahayd ama aad u gudubtid waalidkii horta dhibkeeday leedahay sida saxdaa ma aysan ahayn in ay soo bandhigto guud ahaanba balse haddii lagu yiraahdo qisadaada inoo sheeg ama qisadaada waad ka run sheegi oo siday u dhacdaad u sheegi ama marka hore waxaad leedahay iga daaya qisadeedii kama sheekeynaye haddaba marnaba iima muuqdo xumaan aanan ahayn in qisada sida saxdaa loo sheegay qisada waxay u sheegtay sidii ay u dhacday qofba dhinacuu doono ayuu u jiitay balse waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeedow saddexdoodaba labada waalid iyo gabadhaba ha ku xadgudbina ha aflagaadeynina wax ka run ah nama ogid wax ka beenana ma ogid laakiin waxaan dareemayay in ay tahay gabadhan gabar waxa ay sheegayso ugu yaraan 3 ka meel 2 meel ay ku dhacday
hadda aabbihii dhibaatada loo geystay war iyo waayaba uma hayo waxa dhacay war iyo waayaba uma hayo waxa iyo qaabka ay u dhaceenba war iyo waayo uma hayo waa kan asagoo hadlayo bal ila dhageysta aad baad u mahadsan tahay asmaa beed baan ahay anigu arrimahan baraha bulshada lama socdo maadaama aan la socon ayaa waxaa dhacday inaan yaroon adeero ahay ayaa ii yimi dabadeedna wuxuu igu yidhi adeer waxaan la sheegayay maxaa ka jiro oo walaalaasma maxaa ku dhacay kaasaan ku yidhi xukuma dhicin dee xagga hooyadii bay jirtaa baan ku yidhi wuxuu igu yidhi dabadeedna wuxuu igu yidhi magaalada waxaa ku jirta inaad gabadhaadii aad ceeriso hooyadeed aad u dirtay gabadhana hooyadeed ay soo ceerisay ee magaaladeeda ay ka shaqaysanayso kadib arrinkii asaga ahaa inantaydii baan la xiriiray inantaydii baa tiri dee adigana soo ceriday oo gurigaagina waa kaaga soo tegay gurigii hooyadana waa ka soo tegay idin way soo ceeriso oon shaqo tegay anugu marka arrinka sidaa ma jiro asma waa inantaydii aad baan u jecelahay iyo labada kale isku hooyada yihiin iyo kuwa imika ii joogay igu yaryar baa carruurtaydii ninna hilibkiisa ma kala jeclaa maadaama aanu kala jeclayn asma waxaan u sheegayaa waa inaan yar qadiyadda iska qaaday arrimo ka waaweyn baa jiray anigii hooyadeed aad baan isku jeclayn oo waad dareemi kartaan dad isnacib lix carruur iskuma dhali karaan siyaabo jirta darteed imika halkan aan ka sheegi karin ayaanu ku kala tagnay maadaama ayadiina 6 carruur ah ayna korin karin anigiina 6 carruur aan korin karin ayaan waxaan go'aan ku qaadanay inay ayadana 3 ay qaadato anigana 3 ay siiso kuwa ay siiso aniga aan masaariiftooda iyo noloshooda damaanad qaado ayadiina kuwa barnaamijyadeena haddii uu ku cajabiyey like share iyo subscribe-ka hanaga ilaabin si aad inoo dhiirigelisid fikirkaagana waa inoo muhiim ee noogu reeb kommentiga